bismillaahir raxmaanir raxiim galab wanaagsan halkani waa xog baahiyaha ciyaaraha barnaamijkeena galabta waxaynu ku soo qaadan doonaa natiijada kulankii finalka ee Copa America iyo kulanka finalka ee Euro 2020 oo caawa la ciyaari doono waxa kale oo barnaamijkeena ka marnaan doonin wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe inoo saar muuqaalkana like inoo dheh maasanid aynu ku bilownay xalay ayaa la ciyaaray kulankii finalka ee Copa America waxaana isku wajahay ciyaartii ugu dambeysay xulalka wadankaasi Argentina iyo Brazil ciyaarta ayaa ku bilaabatay deganaan iyadoo labada xul ay ka muuqatay in midba midka kale uu iska ilaalinayo waxaana ugu dambeyn xulka wadankaasi Argentina uu suurta gashay in ay hal gool iyo waxba ay ku garaacaan xulka wadankaasi Brazil xidiga kooxda kubadda cagta ee PSG iyo Argentina Angel Di Maria ayaa u dhaliyay gool qurux badan waxa ayna xulka Argentina sidaas ugu guuleysteen Copa America ciyaartii gabagabadeeda ayaa lagu dareemi karay micnaha ay ugu fadhisay xulka Argentina iyo kabtankooda Lionel Messi guushii xalay wadankooda uu gaaray waxaana ugu dambeyn Lionel Messi u suurta gashay in xulkiisa uu ka caawiyo inay ku guuleystaan Copa America dhanka kalena caawa ayaa la ciyaari doonaa kulankii ugu dambeeyay ee finalaha Euro 2020 xulka wadankaasi Ingiriiska ayaa garoonkiisa Wembley kula ciyaari doona xulka wadankaasi Talyaaniga labada xul ayaa soo wada bandhigay ciyaar aad u wanaagsan intii lagu guda jiray tartanka waxaana ciyaartan finalka ay caawa noqon doontaa mid aad u xiiso badan labada xul ayaa la soo shartagi doona ciyaartooy da'yar waxaana midaasi ay ka dhigaysaa ciyaarta mid aad u xiiso badan xulka wadankaasi Ingiriiska ayaa ugu dambeysay final tartan muhiim ah oo ciyaaro sanadkii 1966 halka xulka wadankaasi Talyaanigana uu ku guuldareystay finalaha Euro 2008 iyo 2012 waxaana ciyaartani ay ka dhiganaysaa arintaasi mid aad u xiiso badan yaa isleedahay daawade waa uu ku guuleysan doonaa Euro 2020 caawa aniga ra'yi ahaan waxay la tahay xulka wadankaasi Azuri markan la ayun gudubno wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda sida wararka imaanaya Spain ay tilmaamayaan kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa ku sii dhawaanaysa saxiixa ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo xulka wadankaasi France Rafael Varane Real Madrid ayaa xidigeeda ku karilaa inuu saxiixo heshiis cusub waxaana midani ay albaabada u furtay in kooxda Red Devils ay dalab rasmi ah u gudbiyaan dhigooda Madrid tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa ciyaaryahankani ka dhigtay midka ugu sareeya liiska uu doonayo in kooxda United uu ku adkeeyo xil ciyaareedka dambe ee horyaalka Premier League tan iyo markii Sir Alex Ferguson uu ka hayay shaqada Manchester United ku dhawaad 10 sano waa markii ugu horeysay ee United uu dhaqaaqdo saxiix xidigani waxaana macquul ah inay ku guuleysato markaan helista xidiga reer France ee Rafael Varane kooxda Manchester United ayaa horeyba u xaqiijisay saxiixa laba xidig waxa ayna kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund kala soo wareegtay Jadon Sancho halka kooxda kubadda cagta Aston Villa ay kala soo wareegtay goolhayaha da'da ah ee xulka England Tom Heaton waxa ayna hadda Manchester United ku rajayn tahay in ay soo gabagabeyn karto saxiixa daafaca xulka France ee Rafael Varane ciyaaryahanka kooxda Real Madrid ayaa heshiiskiisa uu ku joogo garoonka Bernabeu waxa kaliya kaga harsan hal sano waxaana taas ay la micno tahay haddii kooxda Madrid ay aqbali weysiinay xidigan ay sanadka dambe ku weyn doonto qaab lacag la'aan tababaraha cusub Real Carlo Ancelotti ayaa xidiga heesta koobka adduunka ku qancin doona inuu ku sugnaado garoonka Bernabeu laakiin waxa ay u muuqataa baa la leeyahay in heshiis cusub uu xidigani mid aad u fog sida uu qoray wariyaha AS Edu Cornaca kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa saad ugu dhow inay hesho saxiixa xidiga reer France ee Rafael Varane dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa horey uga dhaqaaqday soo xirigelinta saxiixeeda labaad ee xil ciyaareedkani kadib shalay markii ay ku dhawaaqeen si rasmi ah inay ula soo wareegeen daafaca bidix ee kooxda Benfica iyo xulka wadankaasi Portugal Nuno Tavares sida ay qorayaan wararkii imaanaya Ingiriiska kooxda Arsenal ayaa haatanba guda gashay gabagabeynta saxiixeeda labaad kadib Tavares waxaana lagu soo waramayaa in xidiga qadka dhexe ee da'da yar ee xulka wadankaasi Belgium iyo kooxda Anderlecht Albert Sambi Lokonga uu ku dhow yahay in si rasmi ah uu loogu
ugu dhawaaqo heshiiskiisa, waxaana xidigani shalay uu caafimaadka ku maray balaleeyaha waddankaasi Holland. Waxa uuna haatan ku sugan yahay waddankaasi Ingiriiska isagoo oo muddo isbuuc ah ku xirnaan doona guriga si uu u gabagabeeyo shuruucda waddankaasi Ingiriiska ee dadka dibadda ka yimaada isku karantiilayaan si loo ogaado in cudurka coronavirus aysan qabin. Dhinaca kalena xidiga daafaca ee xulka waddankaasi Ingiriiska iyo kooxda Brighton Ben White ayaa ahaa saxiixa saddexaad ee Arsenal sida aadka loola xiriirinayay inta uu furan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Waxaana warar shalay soo baxa ay tilmaamayaan in labada kooxood ay ku heshiiyeen 54 milyan oo pound. waxaan xidigan uu horay heshiiska shakhsiga uu la gaaray kooxda kubadda cagta ee Arsenal, waxaana haatan naadiga Ganariska kaliya ay sugaysaa in xidigan uu soo gabagabeeyo waajibaadkiisa xulka England ee caawa finalka Euro 2020 la ciyaari doona xulka waddankaasi Talyaaniga. dhanka kalena kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in dalab 20 milyan oo euro ay ku gudbin doonto daafaca midig ee xulka waddankaasi Talyaaniga iyo kooxda kubadda cagta ee Napoli Di Lorenzo. sida ay sheegayaan wararkii imaanaya waddankaasi Talyaaniga, kooxda Manchester United ayaa muujinaysa xiisaha ay u qabto xidiga reer Talyaani, waxaana kooxda kubadda cagta ee United ay in muddo baraadin ugu jirtay xidig ka ciyaara dhanka midig ee daafaca si uu tartan ugu abuuro ciyaaryahankooda reer England ee Wan-Bissaka. kooxda kubadda cagta ee Red Devils ayaa horey loola xiriirinayay daafaca xulka waddankaasi Ingiriiska iyo kooxda Athletic Madrid Trippier, balse lacagta kooxda reer Spain ay dul dhigtay xidigan oo gaaraysa 40 milyan oo euro ayaa ka dhigaysa in Manchester United ay ka weecato dhankaasi, waxaana haatan loo badinayaa in dalab ka raqiisan midkaasi ay ku heli karaan daafaca midig ee xulkaasi Talyaaniga Di Lorenzo. kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa u furan baa la leeyahay iibinta xidigani haddii qiimo macquul ah laga soo gudbiyo, waxaana xidigan uu horay ugu sheegay wargeysyada waddankaasi Talyaaniga inuu jeclaan lahaa mar inuu ka ciyaaro horyaalka Premier League. dhanka kalena daafaca da'da ah ee kooxda kubadda cagta Juventus iyo xulka waddankaasi Talyaaniga Chiellini ayaa tilmaamay in kooxdiisa Juventus uu horay u weydiistay inay la soo saxiixdaan kabtanka xulka waddankaasi England iyo kooxda kubadda cagta ee Tottenham Harry Kane. ka hor kulankooda Euro finalka ee caawa dhexmari doona labada xul ayuu Chiellini muujiyay in uu horay u weydiistay kooxdiisa Juventus inay la soo saxiixdaan Harry Kane. daafacan da'da ah ayaa ka hor imaan doona kabtanka xulka waddankaasi England, waxaana labada xul ay u muuqdaan midba midka kale inuu aaminsan yahay inuu kaga guuleysan doono ciyaarta caawa. ciyaartan ayaa noqon doonin midii ugu horeysay ee labada xidig ay isku wajahaan, waxaana labada ciyaaryahan ay horay isugu bixeen ciyaar saaxiibtinimo oo xulka waddankaasi Talyaaniga iyo Ingiriiska ku dhexmartay garoonka Turin. sidoo kale xidiga da'da ah ee kooxda Juventus Chiellini ayaa tilmaamay in directorka cusub ee kooxda Tottenham horena ugu shaqeyn jiray Juventus uu ka warqabay xiisaha shakhsiga ah ee uu qabay inuu ka garab ciyaaro xidiga xulka waddankaasi England ee Harry Kane. dhinacaasi Spain khadka dhexe ee da'da yar ee kooxda Barcelona Elias Moriba ayaa lagu soo waramayaa inuu ka xanaaqay heshiis cusub oo ay u soo bandhigtay kooxda kubadda cagta ee Barcelona, waxa uuna xidiga go'aansaday inuu isaga hayaamo garoonka Camp Nou. 18 jirkani ayaa ka mid noqday kooxda koowaad ee Barcelona xil ciyaareedkiina soo dhaafay, waxa uuna kooxdiisa u dhaliyay hal gool isagoo caabiye ka ahaa 3 kale 536 daqiiqo oo u saftay horyaalka La Liga. ciyaaryahankan ayaa haatan galay sanadkii ugu dambeeyay ee heshiiskiisa kooxda Barcelona, waxaana soo gabagaboobay wada hadallo labada dhinac ay yeesheen oo lagu doonayay in xidigan heshiiskiisa lagu kordhiyo. kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa xidigan u soo bandhigtay baa la leeyahay mishaar la mid ah midka ay qaataan ciyaartoyda akademiyada kooxdaasi oo aan weli u safan naadiga, waxaana xidigan uu ka xanaaqay qiimo darrida ay ku sameynayso kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona. ciyaaryahankan oo dareemaya in ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona xushmad darro u muujinayso ayaa diiday inuu saxiixo heshiis cusub, waxa ayna taasi sabab u noqotay in kooxda Barcelona ay go'aan ku gaartay in xidigan ay u celiso kooxdooda hoose ee Barcelona B. sida ay tilmaamayaan warar ka soo baxaya Spain, maanta ma jiro heshiis cusub oo miiska loo soo saaray xidigan, waxaana ay u muuqataa in labada qaybood ay kala hayaami doonaan xilli ciyaareedkan ama marka uu dhammaado heshiiska xidigan 12 bilood kadib.
ugu dambeyntiina xiriirka kubadda cagta ee wadankaasi Spain ee La Liga ayaa aqbalay dalab kooxda Barcelona ay ku dooneysay inay mar kale kula saxiixato weeraryahankooda reer Argentina ee kabtankooda Lionel Messi. xidiga kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee Messi ayaa heshiiska rasmiga ah ee kula jiray kooxdiisa uu soo gabagabay 30 bishii June, waxaana uu haatan la mid yahay ciyaaryahan cusub oo ay kooxda Barcelona la soo saxiixanayso. sharciga u yaalo horyaalka Spain ee xagga mushaharaadka ay kooxda Barcelona jabisay, waxaana laga rabaa in ay soo dhinto mushaharaadka ay bixiso xilli ciyaareedkii si ay u diiwaangeliso ciyaartoy cusub oo kooxdeeda ah. waxaana xidiga Lionel Messi uu haatan u diiwaangashimi doonaa sidii inuu yahay ciyaaryahan cusub oo kooxda Barcelona ku soo biiray. kooxda reer Catalonia ayaa aqbashay dalabka xiriir kubadda cagta ee Spain, waxa ayna ballanqaad u sameysay maamulka La Liga iyagoo sheegay in loo aqbalo marka hore in ay diiwaan geliyaan Lionel Messi kadibna ay burburin doonaan qaar ka mid ah saxiixyada xidigaheeda waaweyn si ay miisaanka La Liga ee mushaharaadka kooxaha ay bixiyaan sanadka 2021-2022 ay qayb uga noqoto kooxda Barcelona. barnaamijkeeni galabtana waa inaga intaa.